بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد وسودان عبد الله محمود معمولها معهد علوم الدراسات في بحنمر Institute for Political Science and Knowledge. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka, salaanta ciisada iyo sharafta leh. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam waxaan rabnaa insha Allah maanta kilibkan yarka inaan uga faa'iideysano mowduuc micno weyn xambaarsan. mowduucaas oo ku saabsan waxa weeye aynu bilownay sanadkii cusub ee 2020 waxaanu soo sugootinay 2029 marka waxaan rabnaa insha Allah kilibkan inaan uga faa'iideysano dhammaan walaalaheena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inaan uga faa'iideyno in qorshaha cusub ay la jaan qaadaan oo ay qorshe noloshooda ay ka samaystaan si noloshooda iyo waxa weeyaan horumarkooda iyo aqoontooda ay u horumari lahaayeen. adduunku qof ma noolaan karo ilaa uu qorshe cusub u dejisto. qorshahaas aad dejisatay iyo balankaas ee 2020 maxaa ku hirgalay, maxaad rabtaa inaad gaadho, maxaad rajaynaysaa, mustaqbalkaagu muxuu yahay, maxaad rabtaa inaad akhriso, buugaag nooceeya baad rabtaa inaad akhriso. marka inta aanan gelin 2020 2019 2019 aanu soo dhaafnay maxaa qabiya naga ah, maxaanu intaanu ku xisaabsanay waxa weeye inoo jaan go'an, maxaynu qabanay, maxaysan noo dhiman. qofku waxa la rabaa inuu noloshiisa xisaabiyo inta aan la xisaabin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uusan hortagin. marka qorshihii 2019 aad dejisay maxaa ku hirgalay, buugaagtii aad akhrisay ma ka guul gaadhay, qorshihii aad lahayd ma gaadhay, himilooyinkaagii iyo rajooyinkaagii qaybo ka mida ma ku hirgaleen, maxaa caqabad kuwa soo kordhay, maxaad rajaynaysay, intee in la eg baad rabtay aqoona inaad gaadho, intee macad baad dhamaysay, intee waxbarashaad gaadhay, intee koorsooyin baad qaadatay. markaad intaad ogaato baad waxaad dejin kartaa qorshaha cusub ee 2020 ama hadda Janaayo ku jirno inaynu ogaano waxaynu u baahannahay. qorshaha maxaanu dejinaa, buugaag intee leeg baynu akhrinaa, qorshe intee leeg baynu nolosha ka dejinaa, himilooyin intee leeg baynu leenahay. baynu rabnaa insha Allah inaynu maanta waxa way turxaan bixino. inta aynu rabnin aynu turxaan bixin waxaan rabnaa insha Allah walaalaheen Soomaali meel kasta ay joogaan iyo dhalinyarada iyo bahweynta reer waxa weeye Soomaaliyeed in aan uga faa'iideyno barnaamijka macadka aynu leenahay. waxaanu insha Allah soo dhejin doonaa koorsooyin aad iyo aad u fara badan oo aynu dadka uga faa'iideynayno, waxbarasho bilaash ah, traininno badan, koorsooyin waxa weeyaan iyo buugaagtii oo aan rabno insha Allah inaynu sanadkan 2020 aynu aad iyo aad u fara badano. annagoo 2020 aanu ka soo wareegnay ilaa buugaag dhowr kun gaaraya. insha Allah haddana aynu bilowno, aynu rajaynayno insha Allah inaynu walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan u faa'iideyno. waxaan naga go'an haddaanu nahay macadka midnimo inaynu waxa weeye walaalaha meel kasta ay joogaan aynu u faa'iideyno buugaag, traininno, tababaro, waxbarasho quality leh, waxa weeyaan rag dhalinyaro ah oo aqoon-yahano ah oo wax badan fahamsan inaynu walaalaha meel kasta ay joogaan aynu uga faa'iideyno. waxaan rabnaa insha Allah 2020 qorshayaasha cusub ee noo degan inaynu walaalaha aynu uga faa'iideyno. buugaagtii aynu waxa weeye review ku samayn jirnay, tababaradii aynu bixin jirnay, traininadii, koorsooyinkii kulli waxa weeye diyaar bayna ka yihiin. qorshahaas waa noo degan yahay. waxaynu rabnaa insha Allah meel kasta ay joogaan walaalaheen inaynu uga faa'iideyno qorshaha 2020 oo aan wax badan aynu isku dhaafsan doono hadduu Alla idmo insha Allah. waxaad nagala soo xiriiri kartaan baraha aan YouTube ku leenahay, Facebook, Instagram iyo Twitter-ka. intaba waxa weeyaan waan idinka caawinaynaa, consultancy waan siinaynaa, qof kasta wuxuu u baahan yahay waan ka caawinaynaa insha Allah. nagu soo booqda xafiisyadeena insha Allah khayr baan idin rajaynaynaa. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa way ka rajaynaynaa insha Allah sanadkan in uu waxa weeye fadligiisa iyo khayrkiisa uu siiyo, sharkiisa naga hayo. waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay waqtiga ka faa'iideystaan, ay wax bartaan, aqoon ay tabcadaan, oo dalka maanta duruufaha ay ku jira ay ka saaraan, oo iyagu naftooda wax bartaan, oo ay dadkooda iyo walaalahooda dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan.
maanta intaasoo kusoo koobay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.